بسم الله الرحمن الرحيم xogaga xuutiyiinta Yemen oo shaaciyay weerar ay ku qaadeen Israa'iil iyo markabka Mareykanku leeyahay ee diyaaradaha xambaara ee USS Harry Truman haddaba sida wax u dhaceen xog iyo wararkii ugu dambeeyay iyo war culus oo xuutigu caawa ay jeediyeen ayaan idin haynaa madaba in saraakiil ka socota maamulka cusub ee Syria ay booqasho qarsoodiye ku tageen Israa'iil maxaa ka jira in imaaraadka uu ka shaqeynayo dhexdhexaadinta Tel Aviv iyo Dimashq xog sir ah oo saxaafadda loo disiyay ayaa faahfaahin ka soo baxaysa weerar Israa'iiliyiin lagu beegsaday daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ayaa xog dheeraad ah ka soo baxaysa ra'iisul wasaaraha Pakistan oo shaaciyay in dalkiisu uu ku jiro diyaar garowgii ugu dambeeyay ee jawaab ka dhana Hindiya Erdogan oo si buuxda u garab istaagay Pakistan xilli cirka ay ku shareeran tahay xiisada dagaal ee Islamabad iyo New Delhi wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan barnaamijka idinku haynaa halkaasi oo Israa'iil duqeymo ba'an ay ka wado saacadihii la soo dhaafay kadib markii ciidankeeda si xun loogu xanuujiyay hawlgalo dhacay ruushkuna wuxuu adkeeyay ammaanka hawada magaalada Moscow maalin ka hor munaasabada weyn ee dabaaldega guushii ruushku oo ka gaaray Naazigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkan idinku hayaana waxay ku aadan tahay maxay tahay hadiyada lagu tilmaamay dhaxalka ee baadarigii Katoliga ee dhawaan geeriyooday uu uga tagay dadka reer Gaza sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa war xasaasiya oo qarsoodiya laakiin saxaafadu ay heshay wakaaladda wararka ee AB iyo wakaaladda wararka ee Reuters iyo wargeyska Haaretz ee ka soo baxay Israa'iil ayaa waxay heleen macluumaadka kulamo qarsoodiya oo ka dhacay gudaha Israa'iil waxaana ay dhex marayaan kulamadan wafdi ka socda dowladda cusub ee waddanka Suuriya arrintan waxa la leeyahay waxa ka shaqeeyay Imaaraadka Carabta waxaana ay ku soo aadaysaa xilli wafdi ka socda Mareykanku ay tageen magaalada Dimashq gaar ahaan Koongareeska halkaasi oo ay kulamo kula soo yeesheen Ahmed al-Sharaa waxaana la sheegay in laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay in Syria qayb ka noqoto heshiiska lagu magacaabo Abraham ee qaar ka mid ah wadamada Carabtu ay la gaareen Israa'iil haddaba sida wax u dhaceen aynu eegno warbixin amuuraha ku aadan oo saacadii ugu dambeeyay faahfaahin laga helayo waxaa soo baxaysa faahfaahinta booqasho qarsoodiya oo mas'uuliyiin ka socota waddanka Syria ay ku tageen Israa'iil dhamaadkii bishii Abriil ee ay wadaaratay wadahadal ayaa waxa la sheegayaa aan horay u dhicin in ay yeesheen iyaga iyo wafdi Israa'iiliyiina waxaana warku taas ku daraya in Imaaraadka Carabta uu fududeeyay wadahadaladan Imaaraadka muddooyinka ugu dambeeyay waxa ka howlana dhexdhexaadinta wadahadalada dadban oo u dhaxeeya labada dhinac sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee AB Reuters isla markaasna uu qoray wargeyska Haaretz ee ka soo baxay Israa'iil wadahadaladan waxa lagu tilmaamay kuwa hoose oo si hoose loo waday waxaana diiradda la saaray arrimaha ammaanka iyo kuwa sirdoonka gaar ahaan dadaalada lagula dagaalamayo waxa loogu yeero argagixisada waxaa xusid mudan in kulamadan aan looga hadlin arrimaha military iyo duqeymaha Israa'iil ka wado gudaha Suuriya wadahadaladan ayaa waxa la sheegayaa in ay bilowdeen kadib markii madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa booqasho uu ku tagay Imaaraadka Carabta 13 bishii Abriil halkaasi oo kula soo kulmay madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed Al Nahyan laakiin intaan warbixinta idin dhameystirin dadka Suuriyaanka iyo dadka Carabta iyo dadka arrimaha gobolka la socda waxyaalaha ay su'aalaya waxa kamid ah Syria waxa leeyahay waxa u daran waa duqeynta Israa'iil ka wada gudaha waddanka Suuriya oo ay ku burburisay xarumihii militariga saldhigyada ciidamada dekadihii gaar ahaan qaybtii ciidanka diyaaradihii dagaalka iyo waliba raadaaradii iyo gantaaladii waddanka Suuriya toddobaadkii hore Israa'iil waxay duqeysay meel ku dhow qasriga madaxtooyada waliba xilligaas waxa ku sugnaa Ahmed al-Sharaa waxay leeyahay marka wada hadaladii dhacay
lagumaba soo darinba in laga hadlo duqeynta Israa'iil haddaba aynu ku soconno warbixinta iyo wararka dheeraadka ka qaybgalayaasha wadahadalada ayaa waxaa ka mid ah baa la yiri saraakiilsha ammaanka u qaabilsan Imaaraadka Carabta wakiilo ka socda sirdoonka Suuriya iyo xubno ka tirsan hay'adaha sirdoonka Israa'iil kuwaasi oo qaarkood ay ka mid yihiin kuwa horay xiriir u soo qabtay inkastoo aan faahfaahin badan laga helin kulamadan sirta ah haddana warbaahintu waxay muujinaysaa in ay suurtagal tahay isbedel ku yimaada xiriirka Suuriya iyo Israa'iil oo muddo dheer colaad u dhaxaysay tilaabada dhanka diblomaasiyadda ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay jirto xiisad gobolka ka taagan iyadoo Israa'iilna duqeymo ay ka geysatay gudaha waddanka Syria tii ugu dambeysay ayaa ka dhacday agagaarka madaxtooyada magaalada Dimashq taasoo sare u qaaday xaaladda adag ee gobolka waxaana la sheegayaa in Israa'iil ay ka jawaabaysay hanjabaado iyo qatar la soo gudboonaaday qowmiyadda Druuska ee ku nool Lebanon iyo Israa'iil iyo weliba Suuriya hoggaanka cusub ee Syria ayaa qaaday tillaabooyin la sheegay inay yihiin kuwa muujinaya rabitaanka nabad ay la gaaraan Israa'iil tillaabooyinkaasi waxaa ka mid ah xariga xubno ka tirsan kooxda jihaadul islaami ee reer Falastiin oo lagu xiray magaalada Dimashq sidoo kale waxaa la sheegayaa in maamulka cusub ee Syria xiriir ula sameeyay qaar ka mid ah jaaliyadaha Yuhuudda warqad ka timid wasaaradda amuuraha dibadda ee ku celiyay halkaan warqad ka timid wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria oo loo diray waaxda amuuraha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa lagu yiri Syria lama ogolaan doono in ay noqoto qatar ku wajahan cid kasta oo ay ku jirto Israa'iil Imaaraadka Carabta doorkiisa dhexaadinta ayaa waxaa lagu xusuustaa arrimaha la xiriira hirgelinta heshiiska Abraham ee 2020 ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinacyada Suuriya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo la sheegayo inuu fududeeyay xiriirkan waa tahay waan arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahan iyadoo Axmed Al-Sharaacna iminka uu ku sugan yahay magaalada Paris halkaasi oo wadahadallo uu kula leeyahay madaxweynaha waddankaasi Faransiiska Emmanuel Macron waynu arki doonaa wixii qodobkaasna ku soo kordha iminka xagga Moscow aynu eegno 9 bishan munaasabad weyn oo lagu dabaaldegayo guushii Ruushka oo ka gaaray Naazigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka ayaa la xusayaa laguna qabanayaa magaaladaasi waa munaasabada 80 guuradii dagaalka Ruushka markii uu ku guuleystay hogaamiyaal fara badan ayaa ka qayb galaya madaxweynaha Brazil madaxweynaha Shiinaha oo mar horeba tagay magaalada Moscow ayaa ka mid ah dadka ka qayb galaya laakiin waxay ku soo beegmaysaa arrintan iyadoo madaxweynaha Ukraine uu si cad u sheegay inuusan damaanad qaadi karin ammaanka madaxda ka qayb galaysa munaasabadaasi macnaha waynu beegsanaynaa shalay iyo maanta Ukraine diyaaradaha daroonka ay waxay ku duqeysay magaalada Dimashq magaalada Moscow raali ahaada haddaba waxaa la sheegayaa in Ruushka haatan uu adkeynayo ammaanka magaalada Moscow wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga dad goobjoogayaal ah ayaa arkay kolonyo gaadiid dagaal ah oo Ruushka ah kuwaasi oo socda wado xilli lagu jiro dholatus ciidan oo loogu diyaar garoobayo dabaaldegida military ee lagu xusayo sanad guuradii 8aad ee guushii Ruushka uu ka gaaray Naasiga Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka madaxda sheegay inuu qaaday dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo ammaanka inta lagu gudo dabaaldegyada 9 May ee maalinta guusha oo aska sanad guuradii 8aad ee guushii laga gaaray Naasiga Jarmalka oo ay ku jiraan xadidaadyo la soo rogay isticmaalka internetka ee Moscow kadib hanjabaado uga yimid Ukraine afayeenka aqalka Kremlin Dmitry Peskov ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in hay'adaha sirdoonka iyo militariga ay qaadeen dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si dabaaldegyada guusha weyn ay ugu dhacaan jawi degan xasiloon oo nabdoon waxa uu intaasi ku daray in xadidaadaha ku saabsan isticmaalka internetka gacanta ay lagama maarmaan yihiin maadaama ay jirto deegaan goboleed oo u muuqata tixraaca Ukraine Kremlin ayaa shalay shaaciyay in 20 hogaamiye oo caalami ah ay ka qayb gali doonaan dowlatuska military ee loo qorsheeyay dabaaldegyada iyadoo oo cabsi laga qabo weerar ka yimaadaan oo carqaladeyn kara munaasabada Moscow ayaa hore u hanjabtay in ay ka tirtiri doonto Kiev qariirada hadii ay Ukraine soo weerarto Moscow inta lagu guda jiro dabaaldegyada hogaamiyaasha qayb galaya bandhiga maalinta guusha waxaa ka mid ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha
madaxweynaha Brazil Lula da Silva sanadkaas 9 bisha May ruushka waxa uu xusaa guushii laga gaaray naasigii jarah dagaalkii labaad ee adduunka taasi oo u soo hoyatay 8 May sanad 1945 dabaaldegadan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu dadaal ugu jiro xal lagu soo afjaro dagaalka ruushka iyo Ukraine oo socday ku dhawaad 3 sano markan waxaynu eegaynaa xiisada ka dhaxaloosan Pakistan iyo Hindiya iyadoo labada wadan la sheegayo iska horimaadiyo xaray inay dhex mareen ilaa iyo maantana iska horimaadiyo goosgoos ah ayaa socday waxaana korortay tirada dhimashada iyo dhaawaca iska horimaadyadii gaar ahaan duqmiya xagga ceerka haddaba intaan idin soo gudbin ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan oo si cad u sheegay wadankiisu inuu qaadi doono duulaan jawaab ah waxaynu ka hormaraynaa war weyn oo Hindiya ku noqday wajigabax iyo ceeb warkan wuxuu ku aadan yahay in diyaaradihii Faransiiska oo Hindiya laga iibiyay in la soo riday Hindiya waxay beeninaysaa diyaaradaha in soo riday laakiin Faransiiska waa soo hadlay dhinaca kale Pakistan waxay sheeganaysaa 5 diyuuradood inay soo riday gaar ahaan diyaaradda Rafale waa diyaarad casri ah oo kamid ah diyaaradaha Faransiiska oo ku dhaarto oo sida F-16 oo kale uu ka dhigo haddaba aynu eegno war amuurtan ku aadan oo warbaahinta Faransiiska ay tibinayso waxa la sheegayaa in sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka wadanka Faransiiska uu u sheegay telefishinka CNN in maanta diyaarad dagaal oo ah nooca Rafale oo ciidamada Hindiya ay leeyihiin laakiin Faransiiska uu farsameeyo lagu soo riday Pakistan taasi oo noqonaysa markii ugu horeysay oo mid kamid ah diyaaradaha casriga ee Faransiiska la soo rido goorsii horeysay oo maanta Pakistan ayaa waxay sheegatay inay soo riday 5 diyuuradood oo ciidamada Hindiya ay leeyihiin kuwaasi oo ay ku jiraan 3 diyaaradaha Rafale ah Hindiya waxa ay beenisay warkaasi laakiin sarkaalkan ka tirsan hay'adaha sirdoonka wadanka Faransiiska ayaa xaqiijinaya arinta kale la yaab kale waxa weeye waxa la leeyahay diyaaradahan waxa lagu soo riday diyaarad dagaal oo Shiinuhu uu farsameeyay isla maanta isla caawa shirkadaasi Shiinayska waxa la sheegay saamigeeda suuqyada inuu kor u kacay kadib markii la ogaaday in diyaaradaha Faransiiska dhulka soo dhigtay awl markii hore maxaa loo dhigi jiray Shiinaha qalabkiisa militariga waxa weyn ma ahan diyaaradaha reer Yurub ma gaar laakiin diyaaradihii Hindiya ee soo galay hawada wadankaasi Pakistan oo ay ku jiraan kuwa Faransiiska sidii shimbirihi way soo daateen waxa leeyahay waxa ka adeegatay diyaaradaha dagaalka ee Shiinuhu uu farsameeyay laakiin Pakistan ay haysato haddaba aynu eegno ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan oo war culus asaguna jeedinaya Shahbaz Sharif ayaa khudbad toos ah oo u jeediyay shacabka Pakistan oo ka jeediyay telefishinka waxa uu sheegay in wadankiisu uu ka argudan doono weerarkii ay soo qaaday Hindiya waxa uu ka qayb galayay aaska Irtaza Abbas oo ah wiil 7 jir ah oo ku dhintay weerarkii Hindiya isagoo ka hadlay arrintan wuxuu yiri waxaan go'aansanay inaan ka argudano dhiiga shuhadadeennii kuwa daadiyay ee waxba galabsan habeenkii xalay ahaa ciidanka Pakistan waxay muujiyeen karti iyo inay ka jawaabi karaan oo si cad u difaaci karaan ciidamada cirka iyo guud ahaan wadankeena Pakistan dagaalka cirka wuxuu ahaa dagaal socday saacado duuliyaasha Pakistan waxay ku sugnaayeen xariyahooda iyo waliba hawada wadanka Pakistan oo ilaalinayeen diyaaradaheena waxay burburiyeen diyaaradihii cadowga dagaalkii caadiga ah ee xalay dhacay wuxuu muujinayaa in Pakistan ay guuleystay ayuu yiri Shahbaz Sharif waxa sidoo kale uu sheegay in mowqifka Pakistan ee Kashmir uu yahay mid ku dhigan sharciga caalamiga ah ee Jammu iyo Kashmir wuxuu yiri waa dhul lagu mursan yahay wuxuuna ahaan doonaa buu yiri sidaas ilaa afti dadweyne laga qaado waxaana sidoo kale uu sheegay in aysan jirin hal dhinac oo go'aan ka gaari kara arrinkaasi har noqoto Hindiya ama cid kale isagoo meesha ka saaray in Hindiya aysan jawaab la'aan noqon doonin weerarka ay soo qaaday isla war arrimaha la xiriira madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif si uu ugu muujiyo taageeradiisa kadib weerarka Hindiya ay soo qaaday sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Turkiga oo ay soo xigtay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay wadanka Turkiga waxa la sheegay Erdogan intii wicitaanka telefoonka lagu jiray in uu u sheegay Sharif in Turkigu taageersan yahay
mabda'a xasiloonida iyo isxakamaynta wuxuuna u muujiyey taageerada turkiga xilligan adag ee Pakistan waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in mar walba laga fogaado wax walba wax u dhimi kara waxaana sidoo kale Erdogan uu sheegay inuu taageersan yahay hadalka ka soo yeeray Pakistan ee la xiriira in loo baahan yahay baaritaan lagu sameeyo weerarkii ka dhacay gobolka Kashmir qaybta ay maamusho Hindiya Erdogan waxa kale oo uu sheegay in Turkiga uu diyaar u yahay inuu sameeyo inta karaankiisa si xiisadan hoos loogu dhigo isla markaasna loo maro dadaal dhanka diblomaasiyadda waa tahay intaasna aynu ku dhaafno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Pakistan iyo Hindiya goorna waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza Xuutiga oo war adag soo saaray iyo xagga Gaza intayna u gudbin dhinaca daanta galbeed waxa ka dhacay fiidkii laba hawlgal oo kala duwan Israa'iiliin baa la beegsaday hawlgalkaasi mid ka mid ah nin Falastiiniyan tuu gaari qaatay ayuu askar Israa'iiliin oo ku sugnaa bar control gaariga dardarsi ugu yaraan hal askari ayaa la sheegay inuu dhaawacmay dhinaca kale koox Falastiiniin ayaa soo kale waxa la sheegayaa in ay weerar ku qaadeen Israa'iiliin ku sugnaa deegaanka la yiraahdo Rayhan deegaankan wuxuu ku yaalaa waqooyiga daanta galbeed waxaana la sheegayaa in 4 Israa'iiliin lagu dhaawacay halkaasi oo toogasho ay ka dhacday telefishinka kanaal 14 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada Israa'iil ay haatan goobtii ku sugan yihiin iyagoo baaraya Falastiiniinta ka dambeysay weerarkaasi waxaa jira warar sheegaya in goor dambe israasaaseen dhacday lagu dilay qof Falastiiniya oo la aaminsan yahay inuu weerarkan ka dambeeyay laakiin ilaa hadda si rasmi ah arrintaasi looma xaqiijin telefishinka Israa'iiliga waxa intaas ku daray in weerarkan la fuliyay iyadoo rasaas laga soo riday gaari marayay meel u dhow goob ay ku sugnaayeen ciidamo Israa'iiliin ah oo bar control ah oo gaari Israa'iiliin u taagnaa dhanka Gaza ay u weecanba Israa'iil waxay sii wadaa duqeymo aad u xooggan waliba duqeyntan waxa la leeyahay waxay ku soo aadaysaa iyadoo hawlgal ka dhacay Rafah iyo Khan Yunis ciidanka Israa'iil si xun lagu xanuujiyay duqeyn baan baa socota waxa kamid ah suuq dadku ka adeeganayaan in galabta la duqeeyay waliba waxa ugu darnaa goob baqaaxi ah ayaa waxa ka dhacday dhimasho aad u xanuun badan ugu yaraan 51 qof ayaa tan iyo maanta ku dhintay duqeymahaasi sida goor dhaweyto telefishinka Al Jazeera oo ka soo xigtay mas'uuliyadda dhanka caafimaadka ee Gaza dhacdooyinka laakiin naxariis darrada ay ka muuqato oo naxadinta waxa kamid ah wariye Falastiiniya oo la dilay wariyahan wuxuu noqonayaa wariyihii 213aad ee lagu dilay marka Gaza 213 dadka ka shaqeeya saxaafadda ayaa lagu dilay marka Gaza kaamiristayaasha ama film qaadayaasha wariyaasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta ayaa isku jiraan laakiin wariyahan arinta gaarka ku ah waxa weeye saakay ayaa ilmo u dhasheen gabar baa u dhaartay saaka caawan uu dhinta haddaba aynu eegno warbixintaasi ku saabsan wariyahaasi wariyahan waxa lagu magacaabaa Yahya Sabiix ma uusan ogeyn baa liiri saakay markuu dhabta ku hayay gabadhiisa yar in ay noqon doonto macsalaamada ugu dambeysay wariyahan wuxuu ka mid yahay wariyaasha aadka u diiwaan gelinayay dhibaatooyinka dadka Falastiiniinta ka soo gaaraya weerarada Israa'iil ka wada marka Gaza waxaana la sheegayaa in lagu beegsaday marka Gaza sawirada halkan ay kaga muuqday ee saddexda ah aan idin sharaxno kan bidix ee jaakada saxaafadda uu gashan yahay waa wariye Yahya oo gaar u taagan laakiin labada sawir kale ayaa waxay labada sawir ee dareenka naxdinta la xambaarsan bartiisa Facebook qaybta statuska ayuu soo galiyay isagoo gabadha yarta kor u haya marna waa kaligeed hadalada marka halkan ku qoraya waxay yihiin kuwa cajiib ah oo dareen leh wuxuu yiri rali ahado barta oo soo dhiga waa Instagram-ka wuxuu yiri adduunkeena wuxuu iftiimiyay amiirad yar mahad alle baale kaasoo nagu sharfay imaatinka gabadheena qaaliga ilaahay ha ka dhigo ilmo suuban indhaha iyagana ha ku qaboojiyo yani fariintaas waxay ahayd fariintii ugu dambeysay wariye Yahya oo qoray waaye dhinaca kale waxaa soo yeeraysa baaqyada caalamiga ah ee ku aadan
ficilada Israa'iil ka wada Mareykanka Gaza. Ra'iisul wasaaraha wadanka Ireland Simon Harris ayaa si adag u cambaareeyay duqeynta Israa'iil ku qaaday iskuul ku yaala Mareykanka Gaza oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah, taasi oo sababtay dhimashada 10 Falastiiniin oo ay ku jiraan caruur. Wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka lana furo gargaarka bini'aadanimada Mareykanka Gaza. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda Boortaqiiska ayaa mar kale waxay ku celisay baaqeeda ku aadan in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka lana sii daayo la haystayaasha iyo in gargaarka loo ogolaado dadka ku dhaqan Mareykanka Gaza. Boortaqiisku waxay ka muujiyeen walaac weyn qorshaha Israa'iil ay ku ballaarinayso hawlgalka dhanka militariga. wadamada kale ee Yurub arrintan ka hadlay waxaa ka mid ah wadanka Belgium. Wasiirka arrimaha dibadda Maxime Prevot ayaa waxa uu sheegay in Yurub ay u baahan tahay mowqif midaysan oo xooggan oo ku aadan waxa ka socda Mareykanka Gaza inay qaadato. Maxime waxa intaas ku daray in diidmada Israa'iil gargaarka cuntada iyo korontada Mareykanka Gaza aan la aqbali karin, isagoo carabka ku adkeeyay in waxa ka dhacaya Gaza ay ceeb ku yihiin dunida oo idin oo ay tahay waxa la aqbali karin. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyto waxa uu sheegay in 24 saac soo socda war weyn oo ku aadan Mareykanka Gaza uu soo bixi doono. Ma aanu sheegin waxa uu yahay warkaasi. wararka Gaza intaas aynu ku dhaafno. markan waxaynu eegaynaa xuutiga oo warweyn soo saaray. barnaamijkan ka horeeyay ee wararka caawa waxaan idinku soo gudbinay militariga Israa'iil ku andacooday inay ka hortagaan gantaal iyo diyaarad drone ah oo laga soo riday dhanka Yemen. haddaba goor dhaweyta telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu sii daayay codka barnaamij uu waraysi raali ahaada waa bayaan uu soo saaray General Yahya Sariic oo ah afayeenka xoogagga xuutiyiinta wadanka Yemen. wuxuu ku dhawaaqay howlgallo militari oo cusub inay fuliyeen. wuxuu kaloo sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada cirka ay ku hayaan Israa'iil iyo kuwa badda. wuxuu yiri diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada cirka ayaa waxay fuliyeen 2 howlgal oo militari oo ka dhacay garoonka Ramon, waa garoon ciidamada cirka iska leeyihiin Israa'iil. wuxuu kaloo sheegay in weerar kale oo ka dhacay Yava, waa Tel Aviv. Yahya Sariic wuxuu intaas ku daray in sidoo kale ay beegsadeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee USS Harry Truman. wuxuuna sheegay inay u isticmaaleen weerarkaasi gantaalaha nooca ballistiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sidoo kale wuxuu xusay in ay sii wadi doonaan xanimaada dhanka duulimaadka iyo maraakiibta ee Israa'iil saaran. waxa kale oo ka hadlay in garoonka Ben Gurion ee Israa'iil ugu weyn uu yahay garoon la beegsan doono mar walba. Yahya Sariic wuxuu faahfaahiyay weerarka ay ku qaadeen markabka Mareykanka. wuxuu yiri weerarkaasi wuxuu dhacay ka hor intii aanu Mareykanka oo uu ku tilmaamay cadow uusan ku dhawaaqin inuu joojiyay gardarradiisa ka dhanka ah dalka Yemen. macnaha wuxuu ula jeedaa weerarkaasi aan ku qaadnay markabka waa intii heshiiska xabad joojinta aan la gaarin, laakiin weerarada Israa'iil waa weerar cusub. Mareykanku shalay maxay qirteen diyaarad inay ku soo dhacday badda Cas kadib markii sida Mareykanku ay sheegeen ayadoo ku soo deganaysa markabka weyn ay ka baxday wadada diyaaraduhu ku cararaan ama ku soo degaan ama ay ka kacaan ee ku taal markabka dushiisa ama oogada sare. haatan waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabay jirnay. waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawataan. waxaan idin haynaa sheekada ku saabsan baadarigii geeriyooday ee Katolika ee dhawaan geeriyooday bishii Abriil ayaa waxaa leeyahay hadiyad dhaxal ah iyo wuxuu uga tagay dadka Falastiiniinta, gaar ahaan dadka reer Gaza, gaar ahaan carruurta. haddaba maxay tahay? waxaa leeyahay sida ku horumaysa wakaaladda wararka ee ANSA ee laga leeyahay wadanka Talyaaniga. Bob Francesco ayaa waxaa la sheegayaa in intii uusan geeriyoon uu ka dardaarmay gaarigiisa ku socon jiray in loo hibeeyo carruurta xanuunsan ee Mareykanka Gaza. wuxuu leeyahay carruurta waa in lagu qaadaa gaarigaasi oo la geeyaa Mareykanka Gaza si loogu adeego carruurta Falastiiniyiinta. Bobka oo geeriyooday bishii Abriil ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay in lagu wareejiyo gaariga hay'ad khayriya ama arrimaha samafalka ka shaqeysa, isla markaasna gaarigaasi ay u qaado sida uu yiri dadka Falastiiniyiinta oo ah buu yiri dad qiimo leh. waxaa xusid mudan in Bobka uu aad u taageeri jiray dadka Falastiiniyiinta intii aanu gooriyoon 21 bishii Abriil. waxaa la sheegay dhowr mar in uu sidaan oo kale uga hadlay arrimaha Mareykanka Gaza
oo uu sheegay in loo baahan yahay in waxa qise ka dhacaya si degdeg ah lagu joojiyo waxaana sidoo kale la sheegayaa intaasi ay keentay Israa'iil inay aad uga carootay hadaladiisa oo xitaa aysan wafdi u dirin Israa'iil ka qaybgalka aaskiisii Vaticanka lagu qabtay dhawaan waaye hadaba gaarigii waad arkaysaan waa la diyaarinaya gaarigii waa la nadiifinayaa waa la dhaqayaa kadibna waxa lagu wareejinayaa hay'adda samafalka kadibna gaariga waxay geynaysaa Mareyka Gaza si loogu adeego carruurta xanuunsan waana sababta Israa'iil ay u leedahay boobka wuxuu ahaa nin nacab dadka Yuhuud ah waana sababta Israa'iil ay sheegtay inaysan uga qayb galayn aaskiisii waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka haddaba si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo